munaasabadan ayaa ciidamada Talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowga Yurub waxa ay deeq isugu jirta qalab caafimaad, buskud, cabitaan iyo kabo la kala gaarsiiyay xarunta caafimaadka hooyada dhallaanka ee degmada Boondheere iyo xarunta agoonta gabdhaha ee Boondheere. waxaana halkaas hadallo ka soo jeediyay xiriiriyaha barnaamijka deeqaha ee ciidamada Talyaaniga Captain Moge. madaxa xarunta caafimaadka hooyada dhallaanka ee degmada Boondheere Ruqya Maxamuud Afrax ayaa waxay ka mahad celisay deeqdan la soo gaarsiiyay. waxaa farxad noo ah galabta in ay mar walbaba Boondheere oo nasiib u yeesho wax walbaba inay si la jecel yahay ku helaan. waxaa hadda shirka maanta naga soo qayb galay gudoomiyaha ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Canab Xasan oo dadka ka aasaasay MCH kan wax ahayd iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa tilmaantay in ay tahay kaalmadan mid wax ku ool ah oo bulshada Boondheere wax u tari doonta. Talyaaniga iyo Soomaaliya waxaan aaminsanahay ahmiyad ahaan haddana shacabka reer Muqdisho in ay cid walba nooga dhow yihiin. L'italiano è somalo, hanno una relazione più di un secolo. waxaan kaga mahad celinaynaa Talyaaniga militariga waliba wadamada adduunyada inta hadda ka timid Soomaaliya militari badan jooga laakiin qaabka ay hadda ayagoo ciidamo ah oo militari ah ay bulshada ay u soo aadayaan waxay cadeyn u tahay inay maaragtay aaminaada iyo shacabka ay ka qabaan. gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Canab Xasan Cilmi oo hadal goobta ka jeedisay ayaa tilmaantay inay tani tilmaamayso soo noqoshada xiriirkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Talyaaniga. kaalintii adduunka aanu ku lahayd khaasatan Talyaaniga muddadii dhibaatada aanu ku jirnay haddana haweenka Soomaaliyeed waxyaabo noogu daray dhibaatada noogu dhacaysay waxay hooyadii carruurta oo u dhimanayay dhiigbax u dhimanayay dawalaan u dhimanayay dhakhtarlaan u dhimanayay qalablaan maanta aan aragno MCH ugu horeeyay noo dhiseen dawadii iyo qalabkii la hadra ay daba joogan waxaan leenahay waa idinka mahad celinaynaa. Colonel Bernardo ah madaxa ciidamada Talyaaniga ayaa sheegay in aysan deeqdan ahayn markii ugu horeysay ama ugu dambeysay ay deeq soo gaarsiiyaan deegaanka degmada Boondheere. Today I am here with the Mr. Faccani, Dr. Faccani, coming from Italy, and is bringing new equipment and materials, such kind of gynecological bed, recovery bed, lamp, tables, and different kind of equipment. maantana waxaan halkaan u joognaa deeq yar oo na soo gaarsiiyay Dr. Faccani runtii oo ah qalab dhan oo qolka dhalista haweenka oo sariirtii kale nalalkii miisaskii furniture dhan oo ay u dhay agaasimaha caafimaadka ee gobolka Banaadir Dr. Cabdullaahi Xasan Dr. Nuune ayaa tilmaamay in gudoonka deeqdan ay tahay mid faa'iido u leh dhallaanka iyo haweenka ku dhaqan degmada Boondheere. waxaan ka rajaynaynaa dawladda Talyaaniga oo dawlad weyn Soomaaliyana gacan hore u sii jirtay waxaan ka rajaynaynaa dhammaan inay maaragtay adiga Talyaaniga ee dalkan wax ka qaban jiray dhinaca caafimaadka inay ku soo noqdaan. L'Italia always was helping Somalia and it was the biggest or we say the largest state which was helping Somalia, especially in the health, and we would like to come back in that sector again. waliba jaamacadani ay caafimaadka ka soo bixi jireen dhakhaatiirta dalka waxa gacanta ku hayn jiray oo ama support ha ahaato ama ha ahaato maaragtay macallimiin ba noo soo diri jiray dowladda Talyaaniga. gudoomiyaha degmada Boondheere Qaasim Cabdulle Xasan oo hadal ka jeediyay xarunta caafimaadka ee hooyada dhallaanka ee degmada Boondheere ayaa hadaladiisu ahaayeen kuwa tilmaamaya mahad celin uu u jeedinayay ciidamada Talyaaniga. loo talagalay hooyada umuraysa qalabkeeda dhammaystiran alxamdulillah maanta iskale waa soo wareejiyeen wax lagu farxay maantii markii labaadna waxaan taaganahay xaruntii agoonta gabdhaha Boondheere oo ayadana u jeedaan qalabkan ay kusoo taageereen taageeradooda joogtada oo markasta ay la garab taageereen aad iyo aad uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol waa ku mahadsantihiin leenahay dadka. ugu dambeyntiina waxaa xarunta agoonta ee gabdhaha ee degmada Boondheere la gaarsiiyay buskud, kaba iyo cabitaano kala duwan. maamulaha xaruntaasi Macallimad Nuurta Maxamed Cadow ayaa ka mahad celinaysa
deeqdan wax ku oolka ee la soo gaarsiiyey qashada ay noogu yimaadeen qolada Talyaaniga ah sarkaalka hogaaminayo way mahadsan yihiin ugu soo booqday xarunta gabdhaha agoonta ee Boondheere waxaan uga mahadnaqaynaa alaabta u jeedaan ee buskud iyo kabo iyo cabitaano fudud ay ku soo salaameen gabdhaha agoonta wayna mahadsan yihiin waan uga mahadnaqaynaa mana aha markii ugu koobaad ay gacan sidaan la mid ah ay soo gaarsiiyaan gabdhaha agoonta wayna ku mahadsan yihiin